بسم الله الرحمن الرحيم دمان ardayda iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaad ku soo dhawaataan casharadii barashada aan ku qaadanaynay computer management learning center anagoo casharo kala duwan ka qaadanay how to teaching English language and computer teaching baan qaadan doonaa marka sidee u baran karnaa casharadan hadaan isla ilaano waa Somali Star Online Training ayaa kala soo xiriiri doonaa wixii casharo ku saabsan oo computer English ba marka casharadeen iyo waa kuwii aan ku sii jirnay waxaan ka soo gudubnay casharadii office kala isku yiraahdo oo office waa casharo kala duwan office waa majmuucadan oo dhameystiran oo sections kala leh word baan qaadanay excel baan qaadanay hadana access baan qaadanaynaa kadibna powerpoint baan sii qaadan doonaa marka waa muhiim jidan taasi casharadii oo waxaan noo soo dhamaaday labadii buug oo hore si fiican ayay nagu soo dhamaadeen waxaan noo bilaabanaya marka buugii saddexaad waa muhiim jidan taasi marka casharadaan taxanayna aragno marka objectiveeni baa imaanayna IT certification training video office 2007 waana engineer Maxamed Axmed Bare baraktina umbarno ka waa ka heli kartaan mar walba waa u baahan tihiin WhatsApp na soo diri kartaan marka waa muhiim jidan casharadaan saa ula soconay inaan ula sii socono marka access baa noo bilaabanaya oo database baan bilaabaynaa cashirkii ahaa waana soo gudagalaynaa waana muhiim jidan taasi marka cashirkeenan introduction baan horta bilaabaynaa inaan aqrino introduction hadii lagu yiraahdo what is the database maxaa dhihi kartaa database management system way management system waxa laga shaqeeyaa nidaamyada kala duwan marka maxaa loo soo gaabiyaa DBMS waxa loo soo gaabiyaa database management system marka waa good marka barashada cashiradan oo aan ku baranayno database kale ayaa jira oo ayaga programming lagu qaato casharada degree-ga marka mareysaan baa qaadan doonta arki doontaan iyadoo la soo dhisayo oo la isticmaalayo Visual Studio SQL la isticmaalayo C# language lagu soo qorayo oo computerka uu yaqaano oo la isticmaali doono diagram lagu soo darayo casharadaas waxa ku arki doontaan marka IT-ga gudahaas ay gashaan oo gaadhaan laakiin waa simple fudud oo office-ka qayb kamid ah database-ka waa office-ka qayb kamid ah okay good marka database step waa nooc of software kamid ah that allow kaasoo ogolaan doono multiple user kala duwan isticmaalayaal kala duwan to store inay ku kaydin karaan access inay ku kaydsan karaan daatooyinkooda xogta shaqaalahooda xogta ardaydooda hadii jaamacad looga shaqeynayo waa ardayda hadii company loogu shaqeynayana waa shaqaalaha ama employee waxaan raano okay good waxaan soo gudagalayaa marka programkeeni start button kan tagayaa all programs waxaan soo dooranayaa ka soo bilaabayaa practicalkii baan soo bilaabayaa maadaama aan aqriyay introductionkii marka casharadeen anaga Somali Star Online Training practical ayaa muhiim jidan u ah marka casharadan oo practical waa very important hadii practical aysan ahayn oo theory ay yihiin wax laga faa'iidayaa ma jiro marka waxaan soo dooranayaa database-keygii oo Microsoft Access baan soo doortay waa kan soo gudagalay company-geeni baan hore ka dhisaynaa marka waxaan ka bilaabaynaa new blank document baan soo baranay blank workbook baan soo baranay maanta waxaan baranaynaa blank database marka mid walba blank waxaan noo sii dhiman oo blank presentation oo lagu qaadanayo PowerPoint baan oo dhiman marka blank database baa la yiraahdaa kan blank database baan dooranayaa oo waxaan soo dooranayaa blank database new blank database halkaan la keenayaa marka ku soo qor baa leeyahay company-gaaga marka company-geeni baan bilaabayaa marka magacii uu yeelan lahaa baan u bixinaynaa marka company-geeni waxa la yiraahdaa Somali Fruit Company create waa abuuraya marka waan abuuray oo waa laysoo ogolaaday marka waxaan bilaabayaa inaan table-ka magac ka bedelo aan u bixiyo magaca company-geeni Somali Fruit Company baan u bixinayaa ila soco marka step by step u daawo casharadan Somali Fruit waa la ogolaaday primary key baa halka lagu siinayaa primary key ID number-na waa leeysi primary key-gi ID-gi waa leeysi marka waxa weey ID marka la qoro out number baa qormaysa halkan hadii aan erayo kala qorana text baa qormaysa hadii salary aan qorana currency baa noo qormayso oo data type-ka nooca ay daatadeen noqon doonto halkaana description baa raacin doonaa waa very important sida practical aan qaadanayna si fiican ugu barataan waana meesha kaliya aan ka soo dhisayno table-ka aan ku shaqeyn doono okay very good Somali Fruit waa had table jira weeyo oo dhisan marka wuxuu yeelan doonaa magacyadii shaqaalaha ayaan qori doonaa marka waxaan dhigi doonaa name
name markaan qoro okay baan leeyahay halkaan text baa liiga gelinayaa halkaan waxaan ku qorayaa waxaan ku qorayaa date-ka ama taariikhda uu dhashay ama waxaan ku qorayaa age-ka da'diisa ama waxaan ku qorayaa halkaan haddaan rabo waxaa soo dhan igama gelin waxaan leeyahay year-ka oo sanadka ah waxaan ku qorayaa halkaan waxaan ku qorayaa marka halkaan year-ka markaan ku qoro date baa ii soo gelaysa halkaan waan dooranayaa halkaanaan dooranayaa waxaa ii soo gelayso halkaan markaa date and time-kii baa ii soo gelay halkaan marka waxaan ku qorayaa salary-ga uu qaadan lahaa salary haddii aan qoro halkan currency baan soo gashanaya currency waa lacagta macnaha aan ka wadaa halkaan marka waxaan soo gashanayaa genderki female miya mise waa male aan soo gashanayaa text halkaan ii soo gelayso marka saas intaas ku filan ba haddaan sameeyo hadda waxaan kusii dari karaa haddaan rabo waxaan kusii dari karaa goobta laga shaqeynayo oo aan dhihi karo waxaan dhihi karaa goobta laga shaqeynayo waxaan dhihi karaa position baan dhihi karaa positionkana waa text marka waxaan dhihi karaa intaas ayaa save garaysanaya waa dhihi karaa oo halay save gareey intaas save marka waa very important tan inaan barano waana muhiim jiddan taas marka waxaan baran doonaa office aan yiraahdo Microsoft Access oo 2007 nooca ah objectives-yada halkaan aan ku qaadan doonaa okay formatkii ugu dambeeyay lagu soo sameeyo ama dhismihii ugu dambeeyay lagu soo sameeyo Microsoft Access database 2007 kan ah furihiisa waa cadaan kuwa kala furahooda waa guduud waa asaas ku kala garan kartaa mar walba oo wax laga soo bedelo office-ka waxaa ku cadeynaya halkaan save-ta meesha save as la yiraahdo waxay ku kala cadeynaysaa office-kaaga nooc uu noqon doono iyo halka save markaa sameynaysa si raacsanaan doontid haddii save aan yiraahdo oo 2002 iyo 2003 kii ahaa aan raacsanaado waa macne 2000 kii ahaa haddii aan raacsanaadana waa macne laakiin 2007 kan ah oo aakhirkii ugu dambeeyay soo saaraan 2007 ka xilligii ahaa baan raacsanaanayaa marka waxaan leeyahay kaasaan ku save garaysanayaa marka waa si save garaysan iska xirnaa company-gaygii waa soo bixinaya haddana waa muhiim jiddan taas inaan barano saas oo save garaysanaysa marka wixii aan soo sameynay name-ka halkaan noo soo galay year-ka halkaas oo noo soo galay salary-ga halkaas oo noo soo galay gender-ki position-ki waa muhiim jiddan fildiyada marka anaga qurxsan karno habaysan karno waa weynaysanaynaa mid walba wax baan ku darayaa ila socosaan u qabanayo fildi baa loo yaqaanaa markii aan excel ka shaqeynayna kuwan waxaa loo yaqaanay column iyo waxaa loo kala yaqaanay row haddana fildi baa la yiraahdaa saa u weyneynayo markay falaarta isbedesho ayaan ka qabanayaa ayaan jiidayaa markay falaarta isbedesho ayaan qabanayaa waan jiidayaa waa Microsoft database oo cashirkeennii ugu horeeyay oo introduction-ka ahaa annaga halkan qoraalla ayaan gelin doonaa name-ka magaciisa aan ka bilaabeynaa Axmed halkaan yeerkii aan gelinaynaa 2015 ama 2016 baan shaqadan bilawnay company-geennii salary-gii baan halkaan kaga hadlaynaa oo currency lacag baan halkaan gelinaynaa saas oo wadaynaa marka mid walba gender-kaan soo gelin doonaa halkaan position-ka meeshiisaan gelin doonaa mid walba mid ka xigaan gelin doonaa marka waa muhiim jiddan taas inaa kala taqaanaan marka taas ayaa very important ah marka cashiradan oo barashada oo aan kan date-kii baan ku saxayaa oo maalintii la joogo saasaan wadaaya marka salary baan halkaan gelin doonaa marka waa muhiim jiddan waxaan joognaa section-kii ugu horeeyay oo aan ku soo qaadanayno table-kan kaga shaqeynayno marka cashirka xigo halkaan oo aan ku wada qorayno xisaabaadka aan gelinayno wax walba aan gelinayno ayaan kasii bilaabeynaa waayo cashirkeennii koowaad baan hadda maraynaa oo introduction-ka ahaa marka cashiradan oo taxana ah waxaa ka heli kartaa Somali Star Online Training cashirkii database-ka bilowga ahaa ayaan qaadanay IT Certification Training Video Office 2007 waana direct number marka Somali Star Online Training waan ku soo noqonaynaa main bounty-geennii marka waa muhiim jiddan taasi dhammaan ardayda dadweynaha Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay cashirka xiga waa inaad la socotaan sidaa darteed wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu